waxay nagu wargeliyeen in aan dhigno waxa aan sidna oo dhan. waxay nagu soo rideen xabado iyaga oo dhulka inoogu dhufanaya. naxdintii ugu weyneyd ayaan la kulannay. inagoo dhibkiina haystay dhib inoogu darmay oo gaajadii ina haystay aan ilaawnay ayay alaabtaynii ka waayeen wax ay qaataan ilin wax macquul ah ma haysanee. kadib waxaan ku nidhi waan baahannahay, haddaad cunno noo heli kartaan na siiya. meel ayayna fariisiiyeen, kadib hilib la qalajiyey ayay noo keeneen. annagana baahi daran baana haysee waan iska cunnay xoogaa. kadib ayay nagu wargeliyeen in aan ka cararno meesha oo aan tagno, maadaama meeshu ay tahay meel dagaal ah oo laba qabiil isku haystaan. nasiib xumadayna meesha aan u soconno waa meel cidlo ah oo dadkii degganaa ay ka adkaysan waayeen dagaalkii qabiilka ay ka guureen. maadaama meesha ay ahayd meel iska cidlo ah, waxaa iska caadi ah in bahalladu ka buuxaan oo ay tahay meel xalaqa hoosiyo kan koraba ka buuxaan oo ay qiyaastii saacaddu tahay 4:15 saac iyo rubi. ayaan si nafla cabsi ah uga tagnay. markii aan nimankii ka fogaanay ayaa wixii cabsi ahaa nagu soo xaadirtay oo wadna garaacu nagu batay. ileen wax dad ahna nalama joogaan. bahalladu agtayna ayay marmarayaan. wax aan samayno ma naqaano. annagoo sidii u cabsanayna ayuu wiilkii ila socday istaaggii ka dhacay oo dhulku ku dhacay, weliba asagoo ku dhawaaqaya warbahalka. naxdin ayaan baraf noqday. markaan fiiriyey lugtiisa ayaan ogaaday inuu bahal cunay oo lugtiisa ayaa dhiigbaxaysa. markaan ogaaday inuu bahal cunay saaxiibkay xilli habeenna ay tahay oo aanay ii suuragelayn in aan meeshaas dhaafo, ayaan go'aansaday in aan wiilkii meesha ka qaado oo aan geed dugaal ah la raadsado. wiilkii oo dhahaya war meesha iga qaad ayaan intaan qaaday meel dugaal ah geeyey. xoogaa markuu joogay oo intaas dhiiggiisu socday ayuu hadal deggan bilaabay isagoo leh, saaxiib, bahalkay cunay mid aad halis u ah ma ahayn, waana socon karaaye meeshan inaga wad oo alaabta inoo soo qaad. la soco qaybta 3.